koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warka waxaan idin leeyahay sidii maamul meel haysta iyo qaar mucaaradaya kalamaan haddii aan arkaba way murmahayaane maxaad maanta haysaan amaad uunka maqashinin kuwii maamulka haystay iyo kuwii mucaaradayaba waa ka koobannahay maxaan u murmi weyn lama dhaxal isku haysata haddaad aragto maxaad isu tihiin lama yidhaa muga dad murmaa haddaad aragto walaxaa ka dhaxeeya hoy unugu muku jirno lama goodlan wax isku murmooye maxaana u khuseeya unug warwal mooshiidina madagoley goroor ka kulmiye waa leere geedaga ka kulugni maa wagooyoonay koonfarashal ana ogaada maday isaaqow weligay qooley garoor cabaysa waa i afkaaga ma maqal koonfur galbeed yalla ka hele war waxaa la yidhi mintidiin ismiidaamiso madaxa goynaysa iyo muran siyaasaa kan haray sii muraal dila hoy ka addis waran bilaahi maxaa sugu bilaabaa war markii la umulbixinay sidaada oo kal marmar looma dhiiban tooraya loo dhiibi war iska aamusa wara lama taqaaniine nin geesiyo dagaalyahana gardaadiyay war waxaa la yidhi kalamaanay inkastuu hadoodilan yahoo kaaga hira taago hardacaarka hooskiisa waa lagu hungooba inkastuu sidii hogalunkado amase heegeeyo hilaaciisa roob sama lahaa lagu hungooba inkastooy hablaha ugu cas tahay ama hubqaad leeday baalidii hannaan quruxsan waa lagu hungooba inkastuu adduun hodon ka yahay heeladku u buuxo hoodii bakay laga mutaa lagu hungooba inkastooy hanweynaan bulshadu u hanqaltaagayso mas-uulkan xilkii hananin waa lagu hungooba war waa lagu hungoowaadaha ka xasuusaday hadiijidiiri maalin dho'aytay may baartay ruux haddii la doorto daraajadii la saariyo xilkii daryeeli waayo dawaabukootay weeye aryaadhaha war ma haysiine beriga abwaangandaalaan si fudud ku kulannay ergadii farmaajiye axmed madoobe wada hadashiin lahayd miyuu hordhac u yahay war naga aamus in la soo tarxiilaa laga yaabaaye kuntaalar boolankiirne laha musaafuriya xasan alansuubi war abwaangandaal lama masaafurune abwaaniintaa soo dhowaysay aryaadhaha warkayga dhex geline waxaan soo xusuusnay hadda ka hor isagoo riwaayad jilaaya geeraarow tiriyey war abwaangandaal riwaayaddiisu jacayl boobkiyaan lagaa badin soo ma ahayn riwaayadii u s dhaliyaha ay tay maday isaaqow u s kaliyuhu wax ma boobina ummadda soomaaliyood oo dhammaa isboobtay warkiiga dhegaysna bacdeen abwaankaas jacaylkaas boobumayno warkayga dhex geline wuxuu yidhi gandaal weligiis ha gableeyo kolba gees ha u yaaco heesu geeyo shaqaale anuunbaa guudka ka heestoo haddii aan gara waayo beddel baan ku gawaanin beddel baan ku gawaaninoo hiiraan guura ku dhaafin galgaduud agaheed iyo gobolkaas mudugda iyo galnugaaleedna u diidiyo isagoo garbaduubanaan togdheer gaari ku dhaafin waa waqooyi galbeedee gebiilayna u diidiyo goroyo cawl ku xerayna alowyaa gar u sheego guulwadow orodkan adigaa ku gulaalmiya iska gaabi yidhaahdaye surwaalkaad gashaneed iyo ku ekow garankaaga qoor guduudan laheeda war galgaduudiyoonay guuri ka fahmayeen antuwada gobyaasiba guurun ama musharax galmudug nagadi war guulwadayaasha astaantoodu soo il gaduudan ma ahayn arguulwadayaashu il guduudan iyo qoor guduudanba waa lahaayeen gandaal alla ku gowracowba u yiqiin war ilgaduudun hoob aragtiyeeda bugdaha guulwadaynta ma faylahaaynek aali war guulwadayaasha hadda jooga astaantooda waa nabadii nolol war kuwa hadda jooga guulwadayaal lama yidhaahe xoogaga wadaniyiinta la yidhaah war maxaa u xamalaysaan xoogaga wadaniyiinta anaa ka mid xoogaga wadaniyiinta le waa la kasaa kuwaas guulwada oo abdheed allemayno arguulwada wax kama taqaaniine astaantoodu waxay ahayd ishayada gaduudan gunta calanka kaaga taal yay ku gaadin yay ku goynin waa godin afaysane xaad ka taqaaniin war cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa la yidhi madaxda hadda joogta muddaxileedkooda waxaa ka dhiman 1 sano 4 sanaa la doorto waana u soo gebagabowday marka niyo maa mucaaradka iyo qaylada iska dhaaftid waa tegayaani isna wuxuu ku jawaabay waa ogolahaye ilma adeeryaalo waxaad iga hubisaan keliya inay tegayaan war gargaadoon ilio birrigleehan midiloo leeray garqaado jacayl yaw angam idaayo
garbaduub ha ii xirin iga siib gantaalaha aan maqli jira warsan baloolsha waxaan maqluu yidhi madaxweyne sheekh shariif oo dhahayo wallaahi uma wallaahi haddaysan xadgudubka joojin waa bixinayna waanan la qabaa uu yidhi iyo cid kastoo xadgudubta in layska celiyaa waa bannaanta dowladnimada in laysku dulmiyaana xaq maaha dadka muqdishona waxay ku mahadsan yihiin inay dul qaateen oo iyagoo la dulminaya ay samreen dowladnimadana ilaaliyeen warsan baloolsha wuxuu soo qaatay qisadii hadda ka horna jawaari soo qaatay oo ahayd labadii islaamood oo canuga isku qabsatay oo garsoorku yidhi waa idiin kala goynayaa oo middii dhashay tiri la kala goyn maayo oo u naxdoo tiri ha qaadato taasi marka wuxuu yidhi dowladnimada in la kala gooyaa la rabaa dadka muqdisho laakiin waa u naxeenoo waxay yidhahdeen waxay rabtaa ha fashee yaan la kala goynin aryaadhaha dalka iyo dadka iyo diinta iyo dawladda minaan la ilaalin wax jiri karaahu ma jiraane waxaan dhihi lahay hey ninkaa daadkiisa diidaaye daneestaahahu waa daabal ninka daadkiisa diidaaye daneestaahahu waa daabal warnamayo war ma haysiine nin xildhibaana iyo aabbihiisaa sheeka dhex martay xilka igu soo wareeji mou yidhi warwarkaan naga dhex gelinina xildhibaanada kuwa dhallinyaro ah ku jiro oo aabbayaashood isla eg yihiin maalin dhoweed markii loo diiday waddooyinka xildhibaanadu inay ciidan la maraan xildhibaankiioo xanaaqsanaa gurigii tegey aabbihiisuu la hadlay wuxuu yidhi waddankan nidaam iyo dawladnimo iyo abni kama jiro dariiq lambara ma leh odagiina wuxuu ku jawaabay jawaab hadda ka hor odagoo ka cabanaya jidad xidhan xildhibaanku bixiyey wuxuuna yidhi maandhow isdeji amnigaa ku jira in jidadka la xidho xildhibaankiina wuxuu yidhi aabba amni kuma jiro sababtoo ah cadowgiyaa baylahna kaga dhigo hubkii iyo ciidankiyaa naloo diiday inaan wadanno odagiyaa ku jawaabay maandhow iska dulqaado 3 sano waa lugaynayni ciidanna ma annaa wadan jidadkuna waa naga xiraayeene xildhibaankiyaa ku celiyo wuxuu yidhi aabba madaxtooyadii lama tegi karo hawlihii nooga xiraana waa la xayiray odagiina ugu dambaystii wuxuu yidhi weli laysma gaarin haddaan qolada filada joogtaa qoysaskooda albaabada ka xidhan adinkana doorkaa idinku yimid dadkuna waa dulqaada jireen dhibkana waa wada qabeene dulqaata xildhibaankiioo garaabay wuxuu yidhi aabba waa runta oo doorkii aan nugu yimid laakiin waxaan aad uga xumahay inaan in badan cabashada dadka shacabkaa dhagaha ka furaysa jirnay odagiina wuxuu yidhi xanuunka inaad qarsato waxaa ka wanaagsan inaad dawadiisa raadiso marka soomaali waxay ku badbaadi kartaa oo qof kastaa meeshuu doono uga danaysan karaa in shabaab layska dhacsho ani xildhibaanku sugaa maykile dardaarama faday libee hoola qaado baradii hooba ka dhibaa in badan alugaayna widaayeenin lugay hoy unku waxaan kaseynaa ka hari weysay waa ku haysataa ma haysato hadda xildhibaanada xasaasiyad abaad dishay haddii laga qaaday alxamdulillah war ma haysaane taliyaha xabsiga dhexe jenaraal xilsiile waxaa lagu eedeeyey inuu sabab u ahaa nin maxaabiista ka mid oo dhintay asagiina wuxuu ku jawaabay ninkaasi qaladaha xabsiga loogala baxay oo isbitaal loo geeyey anna isbitaalkii baan ka soo qaado isbitaal dawladdu leedahaan keenay markuu caafimaaday 2 maalmood kadib uuna dhintay hayehe minow caafimaaday kaskacad miyaa kadib loo toogtay war malagaa toogtou yidhi allaahu akbar yaa malees masabidaha malag qorya sita intaad ku aragtay waraafiyeen u hadlay ciidanka asluubtu wuxuu sheegay jarnaal xirsiile in shaqada laga jooji kiiskaasna sida u dhacay baaris lagu samaynayo hayeh waa lagu daba jiraa miyaa la yidhi warna miya war ma haytana lan reer mudug ee daris iyo taasiika dhiidi taasii gudushan saadi markii intaasii oo habaha fadaw wali baariga islaam waayeel ho sariir jiifta gooskii hangnagdi wali ari goradaasana he Soomaaliya laaba kare midaan iltaasiyada iga muuqatee markay dhimato haddaan idinka tacsiyeynaya yeeri allah u naxariista kii hatana oo hadda reer mudug dad nool may u tacsiyeen hoy usreer mudug makasaymiya ilaahay xaydila xaraarug noolay inisya yaa heer mudug ma waalan yihiin ay oo taaba waaga jimbaar saaranoo noole war runta waa abdulow wadaadila raaya ay oo taha ooyn adduunya waa dhamaate baabo hintiro waa qabri loo wadaahe tila raaya oo ay ota kaliile maxaa u sheegaysay cambaraba waatana waa nooshahaye war naga
tag waa daadii ka yarade shaqfir hay cunin adiga ya ay oo taba waa iga weyntihiin warwar ma haysiina lafta galeen sanad guuradii maalintu madaxweynaha noqday lagu xusaya warsan koonfur galbeed maysiinku ku jara galmudug ma argaasana ma iskiirtiyo hay warwar ma haysiina ergaga qaramada midoobe wuxuu yiri dawladda iyo Jubbaland waa inay wada hadlaan waxaana halkaas ka cad beesha caalamku inay aqoonsato Axmed Madoobe war madaxweynihii kale xidig wuxuu yiri Jubbaland in doorasho xor iyo xalaal ka dhacdo waa muqadas wargoonu istaaga Soomaaliland ba waa muqadas war midnimada Soomaaliya waa muqadas war maamul la'aanta galmudug waa muqadas a'uudu billah ma maamul la'aana muqadas war ma haysaana Soomaaliya Mareykanku waa ka cafiya deyntii runna ku suga war gawaar deeb karafadi muraad yeedeeriya leeray muraad yeedeeri hobus deenti afi aryaadaha minay run naqato in Mareykan deyntii naga cafiya inta kalena xabad nooma haysato annagu Mareykanka deyntan kulayn ka cafin mayno war Mareykanka war kama haysiin maanta waa codayntii mooshinkii Donald Trump horta Trump yaan xilka laga qaadin inta uu deynta naga cafihayo war ma haysaana ra'iisul wasaare Khayre iyo Erdogan baa kulmay war deynta ma laga cafiyay iyaguna war horta deyntan maadinka cunay adigu wareerseen war dhagaxaanta jidada taalo la ka kiray aryaadaha deyntan dadkii hora cune war maadaan naga taga deynu hayda gashay